بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو سهيل عبد الرحمن قهير هرمودك كلية الدقالة جامعة أرمس. waxaan halkan kusoo gudbin doonaa sharaxaad iyo faahfaahin ku saabsan kulliyadda dhaqaalaha iyo barashada cilmiga dhaqaalaha. Cilmiga dhaqaaluhu asal ahaan iyadoo oo laga duulayo baahiyaadka iyo baylahada bulshada ku xeeran waxa uu dadka baraa sida looga faa'iideysanayo, loo qorsheynayo, loo horumarinayo khayraadka Ilaahay ku galaday. Khayraadkaas oo noqonaya qaar dabiiciya sida macdanta, beeraha, xoolaha iyo kalluunka. Khayraadka maadiga ah sida warshadaha, mashiinada iyo qalabaadka iyo khayraadka bini'aadamka tayintooda iyo ka faa'iideysiga hal-abuurkooda. Cilmiga dhaqaaluhu waa cilmi qofka ku qalabeynaya inuu fahmo, la falgalo dhibaatooyinka iyo hantaaqooyinka bulshada la soo darsa sida sicir bararka, shaqo la'aanta, wax soo saar yaraanta iyo hoos u dhaca dhaqaalaha iyo xasilooni darrada nidaamka lacageed ku yimaada. Waa cilmi kugu qalabeyn doona inaad fahanto sida loo maamulo, loo maareeyo, looga shaqeeyo bangiyada iyo ganacsiyada kala duwan. Waa cilmi aad dif ugu ah kagana duwan cilmiyada kale in uu qofka baro sida uu u fahmi karayo nidaamka dhaqaalaha iyo maaliyadda dawladdu u shaqeeyo, dejinta miisaaniyadda dawladda, horumarinta iyo sare u kicitaanka dakhliga dawladda, maareynta iyo markaa qorsheynta sida dakhliga loo leekaysiinayo kharashaadka dawladda. Waana cilmi qofku uu qaab dadban ugu noqonayo siyaasi guuleysta. Dhaqaalayahanaduna waxay badanaa noqdaan siyaasiyiin horumar fara badan bulshooyinka oo gaarsiiya. Cilmiga dhaqaaluhu intaa marka la dhaafo waxa uu qofka baraya sida uu qofku u fahmi karayo xiriir caalami ah, sida uu la falgali karayo ganacsiyada caalamiga ah, soo dejinta qorsheynteeda, waxyaabaha marka aynu dhoofinayno sare u qaaditaankeeda, isdhaafsiga hantida iyo lacagaha caalamka aynu la macaamilayno. Cilmiga dhaqaaluhu waxa uu intaa ku darsaday oo uu cilmiyada kala dheer yahay inuu qofka ku qalabeeyo oo uu baro sida uu u fahmi karayo dhibaatooyinka bulshada la soo darsa hadday noqoto saboolnimo, dakhli yaraan iyo sare u qaaditaanka heerka noloshooda. Cilmiga dhaqaaluhu markaa waxa weeyaan cilmi aad muhiim uga ah bulshada, sare u kicitaanka markaa bulshada iyo hodantinimadeedaba markaa door aad muhiim u ah oo ka qaadanaya. Jaamacadda Armas markaa kulliyadda dhaqaalaha waxa kuugu diyaara macallimiin tayadoodu ay fiican tahay, heerkooga jaamacadeedna uu yahay master's degree. waxaan markaa aad ugula talinayaa ardayda sanadkan ka soo baxday dugsiyada iyo bulshada jecelba inay waxbarasho bilaabaan, inay cilmiga dhaqaalaha ka faa'iideystaan, bulshadoodana uga faa'iideeyaan. Jaamacadda Armas kulliyadda dhaqaaluhu waxa ay gacmo furan idinku soo dhaweynaysaa markaa inaad nagu soo biirtaan. aadna waad mahadsantihiin.